Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkaad wararka la socotaan waa ogaalka macluumaadada TV. Qodobada warkeena maanta aan idinku haynana waxaa ka mid ah qarax weyn oo ka dhacay magaalada Beirut ee wadankaasi Lubnaan. Dowladda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda oo ka hadlay qodobo kale ayaa raaci doona. Daawadayaal kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan. Mar kale kusoo dhawow daawade qodobada warkaas oo faahfaahsan. Taariikhdu maanta waa 2020 bisha Agoosto 5. qarax weyn oo ka dhacay magaalada Beirut ee wadankaasi Lubnaan, gaar ahaan qaybta u dhow dekedda, waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof. Sidoo kale waxaa laga yaabaa saacadaha soo socda inay kasii kordho tiradu intaasi. Sidoo kale waxaa dhaawacmay 400 oo qof oo lagu dabiibayo cusbitaalada ku yaala magaalada Beirut ee wadankaasi Lubnaan. Madaxweyne ku-xigeenka wadanka Lubnaan Xasan Dayib wuxuu ku dhawaaqay 2 cisho oo laga hadlayo xaaladda degdegga ee soo food saartay wadankaasi Lubnaan, gaar ahaan caasimadiisa Beirut. Dowladda ay ka mid tahay UK, France iyo dowladda isku magacowday Israa'iil waxay ku dhawaaqeen inay bixin doonaan caawimaad degdeg ah taasoo lala gaaro dhibaatadan ku habsatay wadankaasi Lubnaan, gaar ahaan magaalada Beirut ee wadankaasi Lubnaan. Madaxweynaha wadanka Lubnaan Michel Aoun wuxuu ku dhawaaqay 3 cisho oo baroor diiqa iyo sidoo kale in la bixiyo 100 bilyan oo liiro iyo sidoo kale 66 milyan oo loo yaqaan emergency care ama daryeelka dadka dhaawacmay oo lagu dabiibayo. Sidoo kale jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada wadankaasi Lubnaan kaasoo loo magacaabo Abbas Ibrahim wuxuu yiri subaxdii hore 4 bishan Agoosto waxaa dhacay qarax weyn oo ka dhacay magaalada. Sidoo kale dowladda isku magacowday Israa'iil waxay bixisay caawimaad bini'aadantinimo, gargaar caafimaad, daawooyin iyo sidoo kale dhakhaatiir, sida ay sheegeen 2 wasiir oo ka tirsan dowladda isku magacowday Israa'iil. Wasiirka difaaca ee wadankaasi Israa'iil kaas oo lagu magacaabo Benny Gantz iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda oo loo yaqaano Gabi Ashkenazi waxay sheegeen inay bixiyeen gargaar bini'aadantinimo iyo dhakhaatiir kuwaas oo lala gaadhay wadankaasi Lubnaan, gaar ahaan magaalada Beirut. Haddaba madaxweynaha wadanka Lubnaan kaasoo lagu magacaabo Michel Aoun wuxuu sheegay in ay qaraxan geysatay 2750 tanis oo ah aluminum nitrate nooca loo yaqaano, taas oo lagu keediyay bakhaar ka mid ah bakhaarada caasimada wadankaasi Beirut, taas oo ku kaysanayd 6 sano. sidoo kalena wuxuu sheegay inay ahayn mid badbaadsan ama si badbaadsan aan loo dhigin. qaraxan waxaa sababay maadada loo yaqaano aluminum nitrate, taas oo 6 sano ku kaysanayd meel aan badbaadsanayn bakhaar ka mid ah bakhaarada waaweyn ee magaaladaasi Beirut ee wadankaasi Lubnaan. wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay arrintan wuxuu sheegay waxaan aad uga xunnahay walaalaha iyaga Lubnaan ee qaraxu geystay. waxaan Ilaahay uga baryayaa caafimaad iyo sidoo kale kuwa dhaawacmay Ilaahay inuu boogdayo. Dowladda Soomaaliya weli kamay hadal arrintan dhacday, balse wasiirka arrimaha dibadda wuxuu u tacsiyay dadkii dhintay iyo sidoo kale wuxuu Ilaahay uga baryay dadkii dhaawacmay inuu Ilaahay u boogdayo. daawadayaal qodobada warkeena ugu faahfaahsan waa naga intaan ku kulmi doono mid lamid ah. waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawade nala dhaafin subscribe iyo follow-da mahadsanid.